Turkiga waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay dal aad u qurux badan isla markaasna u saaxiiba taariikh qoto dheer. Haddaba maanta waxaan idin soo gudbin doonaa waxyaabo badan oo ka aqoon dalkan iyo hogaamiyo madaxweyne Erdogan, wiilka meelka adag ee ku guuleystay qulubta shacabkiisa. sida rasmiga ah waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Turkiga iyadoo ay xaruntii khilaafadii Cismaaniyiinta ilaa 1922 markaasoo Mustafa Kemal Atatürk uu dibadda u taagay Jamhuuriyadda Turkiga ay lahaatay jirta. Wuxuu kaalin 37 kaga jiraa dowladaha ugu badka weyn caalamka iyadoo saddex joog kaga wareegsan tahay badda, waxaana lagu qiyaasaa dadka ku nool ilaa 76 milyan. Dastuurka Turkiga waxa uu ogol yahay xorriyadda caqiido iyadoo dadka Turkidu 98% ay haystaan diinta Islaamka, badankooduna ay yihiin Sunniyiin. ciidamada qalabka sida ee Turkiga waa awoodda labaad ee ururka NATO, waana wax ka badan 1 milyan. waa dowlad ka mid ah dowladaha xubinta ka ah ururka NATO ee ku heshiiyay in la wadaago hubka nukliyeerka garab ilaa garab. ayaa ka dhigayso inuu yahay hub nukliyeer ah uu leeyahay dalka Mareykanka dadweynaha Turkiga. Turkidu waa jaaliyadda ugu badan ee ku nool Germany, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 4 milyan. sidoo kale waxay jaaliyad culus ka yihiin Mareykanka, Canada iyo Australia. waa midka toddobaad ee haysta biyaha ka hooseeya caalamka, waana midka koowaad ee qaaradda Yurub. midaas ayaa ka saacidaysa inuu sii kordhiyo wax soo saarkiisa dhanka beeraha. warshadaha dalkan ugu muhiimsan waa kuwa sameeya cuntada, dharka iyo maqaarka. Jamhuuriyadda Qubrista Waqooyi caalamka oo dhan ma aqoonsana markii laga reebo Turkiga. dalxiisayaashu waa tirka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha Turkiga, waana dowladda toonaad ee hantisa dalxiisayaasha adduunka. waxaa loo doortay 6 jaamacadood oo ku yaala Turkiga, 500 oo jaamacadood ugu fiican adduunka. Istanbul waa magaalada ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee dalkani, waana magaalada kaliya ee ku taala 2 qaaradood. Ankara waa caasimadda dalka Turkiga tan iyo 1923, waana caasimadda Turkiga Istanbul sida ay dad badan aaminsan yihiin. waxa ay sidoo kale martigelisay 3 imbaradoriyadood, Roomaankii, Byzantine iyo Cusmaaniyiintii. waqtigii Cusmaaniyiinta waxa ay ahayd mid ugu faanta dhan walba magaalooyinkii ku yaalay Yurub. ubaxa tulip asalkiisu ma aha Holland, balse asalkiisu waa Turkiga, waxaana geeyay qaaradda Yurub Cusmaaniyiintii qarnigii 16aad. luqadda Turkiga way u sahlan tahay dadka ku hadla afka Carabiga, maxaa yeelay 170 kelmadeedu waxa ay shabahaan luqadda Carabiga. kaniisadda ugu horeysay caalamka la dhiso waxa ay ku taalaa dalka Turkiga. dowladda Turkiga waxay ka mid tahay dowladihii u ogolaaday waqtiga doorashada haweenku inay codkooda dhiibtaan. tani ayaa waxa ay kaga horeysaa Mareykanka iyo dowlado badan oo ku yaala Yurub. Turkiga waa halka kaliya ay joogaan dadka ugu badan ee isticmaala aaladda Facebook-ga. Tren ee Istanbul ee la dhisay 1825 kuna yaala xaafadda Biyaglo waa midka saddexaad ee ugu qadiimsan caalamka marka laga yimaado qadadka tareen London iyo New York.